assalaamu calaykum caruurey sheeko cusub ayaan baranaynaa. sheekadan waxaa lagu magacaabaa sheekadii labada shimbir iyo gorgorka. sidan aynu ku bilaabanaysaa. waa hore ayaa waxaa jiri jiray meel kayn cagaaran ayaa waxaa ku noolaa laba shimbirood oo lagu magacaabi jiray timiro iyo dahabo. waxay meesha ka dhisteen buulal ay ku nastaan oo dhinaca oo ay ka dhisteen labo laamo adag oo geedka korkiisa ah. geedkan wuxuu ahaa guri ay shimbiraha ay ku dhalaan oo ilmahoodna ay ku korsadaan. laakiin nabadii ay ku noolaayeen ayaa waxaa burburiyey hoos weyn oo maalin ku soo duldhacay, kaasoo ahaa hooska gorgor aad u xoog badan oo lagu magacaabi jiray dafane. wuxuuna lahaa indho gaduudan. wuxuu rabay inuu ku qadeeyo ilmaha iyo ukumanka shimbiraha. mar kasta oo timiro iyo dahabo ay u duulaan iyagoo cunto raadis ah, gorgorka wuxuu u soo dhici jiray ilmahooda ama dhalaankooda inuu ka cuno. maalin maalmaha ka mid ah, timiro oo caan ku ahayd fikradaha laablakaca ah ayaa ku fikirtay. markaasaa waxay tidhi, ka waran haddaan geedka u ekaysiino waxa dhaldhalaalaya sida dabka oo kale, oo gorgorkan u muujiya geedka inuu halis yahay. waxaan soo aruurin karnaa wax sida dabka oo kale oo geedka korkiisa aan ku shidno si dafane ugu maleeyo inuu dab yahay, kadibna ilmaheen noogu ammaan helaan oo dafane uu naga fogaado. dahabo ayaa waxay tidhi, ayadoo lagu yaqaanay taxadarka iyo fikradaha fiican, waxayna ugu jawaabtay, arrintan ma hubi, waa fikrad fiican, laakiin ka waran haddii aysan shaqaynin oo dafane u arko waxaan been inuu yahay. waxaan u baahannahay qorshe adag oo shaqaynaya oo badbaadinaya mustaqbalka dhalaankayna. iyagoo talo raadisa ay israaceen, waxayna u soo aadeen oday shimbir ah oo aad u caqli badnaa. waxaan lagu magacaabi jiray xaaji guumays, kaasoo oday duqoobay u aqoon, xikmad iyo cadaalad ku caanbaxay. kadib markii ay u dhegaystay dhibka ay sheegteen ee xaaji guumays talo ayuu u soo jeediyey. wuxuu yidhi, waxaad dhistaan buulal tiro badan oo kulligood isku eg, kadibna gorgorka ha ku wareero markuu mid walba ka boodo oo waxba ka waayo. isagaa daali doona, baahina qaban doontaa, oo maalin dambe aan ku soo laaban doonin. ilmihiinana meeshaas ka dhaqaajiya ilaa dafane uu meesha ka sabro oo uu ka dhaqaaqo. timiro iyo dahabo fikraddii aad ay ugu riyaaqeen, wayna wada shaqeeyeen oo buulal tiro badan ay geedka dushiisa ka taageen. maalintii dambe markuu dafane soo laabtay, waxa uu la yaabay buulasha tirada badan ee geedka dul saaran. wuxuu yidhi, weligay ma arkin waxaan buulal oo ilmo iyo ukuman ay ka buuxaan. wallahi maanta waxaan u dhargi doonaa si aan weligay u dhargin. waqti badan iyo daal badan ayaa kaga lumay oo kaga baxay siduu buul walba u fiirinayay, isagoo ka raadinayay ukuman iyo ilmo yar. timiro iyo dahabo waxay si tartiib ah ubadkooda ugu rareen meel qarsoon oo geedka ku taala, ayagoo ammaan meesha ku helay meeshii ay ku dhunteen. ugu dambayntii, dafane oo daalan oo jahawareersan ayaa geedkii iskaga tegay. timiro iyo dahabana waxay barteen qiimaha ay leedahay in laysla tashado. dadka xikmada leh iyo dadka caqliga oo lagu tuhmaayo in la raadiyo iyo in la wada shaqeeyo sidii loogu gudbi lahaa khatarta iyo halista soo food saarta. cashirka ku jira sheekada ayaa waxay tahay in caqliga iyo iskaashiga ay ka xoog badan yihiin dhib walba oo ku soo waajaha haddii isku duubnaan iyo si deganaan ah loo waajaho. fudaydka, kala qaybsanaanta, dadka aan caqliga lahayn oo lala tashto, kulli waxay keenaan dadka ay dhaxal siiyaan in waxyaabo aan laga fiirsan oo dhibaato mustaqbalka dadka u keeni kara inay dadka ku tashadaan. marka mar walba la tasho dadka caqliga iyo xikmada leh. caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.